asalaamu calaykum kusoo dhawaaw daawada qaybta labaad ee sheekada Amiina al-Mufti. sanadkii koowaad ee waxbarashada markii Amiina ay dhamaysatay waxaa la gaaray dhamaadkii xiriirkii foosha xumaa ee ay Julie Patrick wadaagayeen. maadaama ay waxbarashadii ay dhamaysatay Mrs Julie waxay ku noqonaysaa magaaladii ay ka timid ee Johannesburg ee caasimadda dalka Koonfur Afrika. muddo gaaban gudaheed Amiina waxay u xaraarootay balwadii ay sida maandooriyaha nolosheedii ugu qurxin jirtay, waxaana ay nafta u sheegtay inaanay noolaan karin gabar kale la'aanteed. waxay ku dhawaatay gabar kale oo lagu magacaabo Jimfief Wortrood maadaama ay u arkaysay in ay gabadhan isla fahmi karayaan dhaqanadii xumaa. waxay dadaal u gashay inay maamulka hoyga ardada ee jaamacadda ku qanciso in loo ogolaado inay qol wada jiiftaan Mrs Jimfief. sidii ay filaysay ayaanay sheekada u dhacday oo bartii ayay dhaqan xumadii ay ka sii ambaqaaday. sanadihii waxbarashada ee jaamacadda Vienna ayaa xawaare maalmo yar u ekeysiyo ku dhaafay iyada oo aan weli ku mashquulsan noloshii halowga ahayd iyo xurriyaddii aan xuduudda dhaqanka iyo diinta midna aqoonsanayn. laakiin nasiib wanaageeda waxa uu ahaa weli inay sii wadatay waxbarashadii ilaa ay shahaadada koowaad ee jaamacadda cilmi nafsiga ee caafimaadka ee medical psychology ay ka qaadatay jaamacadda. maadaama ay waxbarashadii dhammaysay qoyskuna ay tirsanayeen maalmaha ay ka maqan tahay guri dambayskii ay jeclaayeen, waxa ay noqotay in Amiina ay dib ugu noqotay dalkeedii. bishii 8aad ee sanadkii 1961 ayaa iyada oo ku qasban ay ku soo noqotay magaalada Ammaan ee caasimadda Urdun. laakiin waxa ay la guryo noqotay dareen iyo dhaqan aad uga duwan kii markii horeba ay kala tagtay magaalada Ammaan. qaylo badan, wehel la'aan, dhaqankii iyo dadkii ay u timid oo ay ka santaagtay maadaama ay u arkayso dib u socod ayaa sabab u noqotay in gurigeedii ay qariib ay ku noqoto. cidladii iyo walbahaarkii badnaa oo ay u raacday balwadii ay qarsan jirtay ee joogsatay. waxa ay Amiina xusuusteedii dib ugu celiyeen dharaarihii jacaylku u cusbaa ee ay wiilkii Basaam la yiraahdo ay kula qaadatay magaalada Ammaan. hore ayaa loo sheegay in xusuusta jacaylka koowaad ay waarto. Amiina waxay go'aan ku gaartay in wiilkaasi ay raadiso oo ugu yaraan mustaqbalkiisii waxa uu ku dambeeyay ay ogaato. magaalada Ammaan ayaa ay dhan kasta ay u martay si ay indhaheeda ugu soo aragto ama warkiisa cid uun ay uga hesho. waxaa aakhirkii indhaheedii ay qabteen runtii qaraareyd oo ahayd in Basaam uu gursaday gabadhii uu waayo ugu daldoorsaday. waxay ahayd gabadh aad u qurux badan oo ka dhalatay qoys faqiir ah. waxa ay hadda ku noolaayeen nolol ay ku qanacsan yihiin iyo xasillooni qoys oo aad u heer sarraysa. Amiina oo isugu darsantay dhibaatadii ka soo gaartay balwadii ay Yurub ku soo baratay oo ay ku weyday Urdun, xurriyaddii furfurneed ee ay qabatintay oo iminka xakamo yeelatay iyo ninkii ay weligeedba jecleed oo rajadii ay ka qabtay in mar labaad ay isheli doonaan, ayaa go'aan ku gaartay in xalka keliya ee dhibaatada kaga bixi kartaa uu yahay in mar kale ay u safarto dalkii ay ka timid ee Austria. inkastoo ay waalidkeed u sheegtay inay doonayso dhammaystirashada waxbarashada sare ee PhD-ga, haddana runtu waxay ahayd in ay qaadatay go'aan adag oo ah inaanay dib dambe aysan ugu soo laaba Urdun iyo dalalka Carbeed. waxa ay Vienna ku soo noqotay iyada oo 23 sano jirkeedii bilo yar ay u dheer yihiin. waxa ay Yurub kula noqotay niyad-jab, calool xumo iyo nacayb ay u qaaday dhaqankii iyo hiddihii waalidkeed ay ku soo barbaariyeen. maanka iyo niyadda oo keliya kama aysan dhaawacnayn markaan oo ay ku soo noqotay Austria. waxaa u dheeraa in ay jir ahaan ay u gubatay oo dusheeda laga arkayo inay weyday barwaaqadii ay u baratay. Amiina waxa ay boorka ka tuntay howlaheedii ama balwadeedii. intii ay dhan iska dhigtay dhaqankii dhowrsoonaa ayaa ay ku talax tagtay ka faa'iidaysiga xurriyadda aan dabarka lahayn ee Yurub. nolosha cusub ee ay gashay iyo damaceeda ah inay marto jid kasta oo ay maraan hablaha ficeeda ee Austria waxa uu sababay in biilka ardaynimo ee aabaheedu u soo dirayay uu ku filnaan waayo. waxa aanay ku kaliftay inay raadsato shaqooyin ay ka hesho dakhli u kaba dakhligii ee aabaheedu u soo diri jiray ee dhanka aabaheed ka soo gelayay iyo qarashka kaas ka badan ee ay nolosheeda cusub ee u baahan tahay. sidaas awgeed waxa ay shaqo ka bilowday beer carruurta lagu ciyaarsiiyo oo ku taala magaalada Vienna. shaqadan cusub waxay isku barteen Saarax Biraad oo ah gabar isir ahaan ka soo jeeda Yuhuud laakiin jinsiyadeedu ay tahay dalka Austria. Amiina iyo Saarax oo ay goobtan ka wada shaqaynayeen waxaa dhex maray saaxiibtinimo dheer iyo shaqo wadaagii ay ku darsatay inay hooy ay wada degaan iyo inay halkii ay kasii wado dhaqan xumadii ay ka dhaxashay ardayadii reer Koonfur Afrika ee jaamacadda ay wada dhiganayeen.
saaxiibtinimadii adkayd iyo jaalkii aan mar kaliya kala fogaanayn ee ay noqdeen amiina iyo saara waxa uu ku hogaamiyey inay ku biirto dhaqdhaqaaqii lagu magacaabi jiray hibbi oo xilliyadaasi aad uga howlgeli jiray qaaradda yurub. amiina waxay iska dhiga marisay dalab uga yimid aabbaheed oo ahaa inay guursato wiil maalqabeen ah oo adeer uu u ahaa. maalin maalmaha ka mid ah oo ay saaxiibada saarahay u raacday booqashay ugu tegaysay qoyskooda oo deggan degmo yar oo lagu magacaabo wentendorf oo ku taalla Austri. qalbiga amiina waxaa si kedis ah u galay dareen awood badan oo aanay bilowgiisii garan sababtiisa, hase ahaatee ee aan ku cusbayn oo ay hadda ka hor ay isku aragtay. mooshi wiilka ay wada dhasheen saarah oo da' ahaan ka weyni waa nin aan albaabada qalbiga laga oodan karin. waa musaxir. aragtidiisa, hadalkiisa iyo raganimadiisa daymada koowaad ayaa ay ka dheehatay. daymadiisii koowaadna qalbigeedii ayaa qayb uu qabsaday. hore ayay u haysay warka wiilkan saaxiibteed la dhashay inuu yahay duuliyo militari oo darajada kabtanimo ka qalinjibiyay jaamacadda, inuu saara 7 sano uu ka wen yahay nin suugaanta jecel, gaar ahaanna suugaantii hore oo ay ka mid tahay hal-abuuradii waaweynaa ee suugaanta Austri sida Wolfgang Mozart ayay sidoo kale xog ku haysay. kabtanka saara la dhashay waxa uu haweenka jeclaa timaha madow iyo indhaha waaweyn ee wiilku barta madow yahay. waa quruxda reer bariga, socodleyrsi iyo tamashleh oo aamine intii ay ku sugnayd guriga saaxiibadeed maalin nasiibka uu gaar u yeelay iyada iyo wiilkan ayaa noqday barbilowga isbeddelka ku dhacay gebi ahaanba nolosheeda. bilowgii go-aankeedu wuxuu ahaa in ay nafteeda ka adkaato oo aanay lulin laydhta ay horraanteedii dareentay ee xiisaha gaarka ah u geliyey wiilkan. laakiin kuma aysan guulaysan iska caabintaasi oo durbadiiba waxaa jirkeeda ka duway farihii u soo dhuuntay ee timaheeda iyo dareenkii maskaxdeedii beddelay ee ka dhashay gacantii sii gaartay gacanteeda oo marka horeba kurbashada caashaqa bilowgii la dubaaxinaysay. xiskeeda waxa uu baraarug ugu horreeyey markii uu wiilkan araggiisii maanqaaday oo dhunkasho dhabanka u saaray oo inta ay jiridhaco aanay u adkaysan karaynin jirkii isgelisay sida ruux yara suuray mar kaliya boodday iyada oo hoos nafteeda uga leh ileen ragga iyo dumarka waa la isku abuuray. maalintaasi aamina waxa ay soo mariibtay goor ay is aragtay iyada oo ku jiifta laabta wiilka saaxiibteed la dhashay oo inta dareenkii caashaq kari weyday si daacadnimo oo liidasho badani ay ka muuqato u qiratay ama ugu qiratay jacaylka ay u qabto. halkaas ayay ka bilowday tallaabooyinkii ugu horreeyay ee xaaraanta ku hagay aamine iyo dooliyihii yahuudiga. iyada oo muslimad ah ayuu miyirkeedu la maqan yahay dareenka uu ku abuuray dooliyaha, waxaana ay markii ogaatay ama miyirkeedii ugu horreysana ay dhaqso uga baxsatay magaalada Vienna. 5 sano ayaa aamine ay ku dhaaftay foof daran habow ah iyo dhaqan xumo, waxaana dhaqankeedii laga dheehanayay inay iska ilowsiisay sababta ay dalkan ay u timid, taasoo ahayd waxbarasho. si kastaba ahaatee maadaama oo aanay weli maskaxdeeda u bisleen inay si buuxda uga hortimaado qoyskeeda, waxa uu warwar badani uu ka qabsaday waxa qoyskeeda ay ku qancin doonto marka la weydiiyo cilmiga ay baratay iyo shahaadadeeda. waana sababta kaliftay in wiilka yahuudiga ahaa oo magaciisa mooshe ahaa uu ka caawiyo in ay u hesho shahaadada sare ee PhD-ga oo been abuur ah. shahaadadan waxaa lagu sheegay inay aamino ay dhammaysatay cilmiga daaweynta xanuunada jireed iyo kuwa nafsiga ah ee ka dhasha xaaladaha nafsiga, cilmigan oo afka qalaad lagu yidhaahdo pathopsychology. sanadkii 1966 ayaa aamino mar kale ay dib ugu noqotay dalka Urdun. qoyskeedii iyo guud ahaan ehelka ayaa si aad u diiran ugu soo dhoweeyay dalkeedii hooyo, iyaga oo ku faraxsan kuna faanaya dhammaysashada waxbarashada iyo soo guryo noqoshada inantooda. farxaddana waxaa wehlinaya damaashaad qarsoon oo qoyska ay ku muujinayaan siday ugu faraxsan yihiin in gabadhooda in sidii dhaqankeedu ahaa u guursan doonto. looma kaadinba oo waxaa markiiba laga codsaday inay ogolaato guurka ina adeerkeed, laakiin waxay ka dalbatay in wakhti la siiyo si ay fursad ugu hesho rumaynta riyadeedii ahayd inay magaalada Cumaan ay ka furato cisbitaal u gaar ah. howlihii diiwaangelinta cisbitaalka iyo ruqsad u helidda uma aysan dhammaystirmin sidii ay filaysay. bilowgii si fiican ayaa hawshay ugu socotay ka hor inta uuna khilaaf kadis ah uusan ka dhex qarxin aamino iyo xogayaha joogtada ee wasaaradda caafimaadka ee dalka Urdun oo ahaa mas-uulka ay shaqadiisa ka mid tahay ruqsasiinta cisbitaalada. amiina cabashadeedii mas-uulkan ka dhanka ah waxa ay gaarsiisay wasiirka caafimaadka oo si aad u hor sarreysa u soo dhoweeyey una muujiya in ay muhiimad weyn ay siinaysa cabashadeeda. wasiirku waxa uu soo saaray amar uu ku dalbanayo in dhaqso loo baaro sababta keeni karta in xogayaha joogtada ee wasaaradda uu caqabad u ku noqdo howlaha ay waday muwaadinad doonaysa inay dalkeeda uga faa'iidayso cilmiga ay ku soo bartay Vienna oo weliba baahi loo qabo.
nasiib xumadeedii koowaad waxa ay bilaabatay markii guddi sharci ah oo loo horgeeyay shahaadooyinka caafimaadka ee shaki ay ka muujiyeen sax ahaanshaha shahaadada b h d-ga ay sidato. guddigan oo ay shaqadoodu ay tahay inay hubiyaan shahaado kasta oo uu sito qofka doonaya inuu ka shaqeeyo caafimaadka ayaa ka codsaday in ay dib ugu noqoto vienna oo ay jaamacadda ka soo caddayso runnimada shahaadada. amiina waxay og tahay runta inay shahaadadaani aysan run ahayn, sidaasi awgeed iyada oo ka cabsi qabta in ceebteedu ay bannaanka u soo baxdo iyada iyo qoyskeedii fadeexadna ay ku dhacdo, waxa ay dhaqso u aqbashay dalabkii guddiga. iyada oo cabsi badani ay haraysay ayaa haddana ay dib ugu laabatay dalka Austria. waxay dhaqso ula xiriirtay Moshe oo isagana boholyow caashaq la golongolsanaa intii ay ka maqnayd. aamina marka ay la xiriiraysay Moshe waxay ahayd sanadkii 1967. bil amaare waxa ay ku beegneed xilligii carabta lagu jebiyey dagaalkii iyaga iyo yuhuudda oo ay carada dadka carbeed ee u qabeen yuhuudda halkii ugu sarraysay ay maraysay. laakiin iyada taasi waxba kama aysan bedelin, si aan gabasho lahayn iyo qajilaad midnaba aysan ku jirin ayay u raadisay jeceylkeedii. care iyo nacayb ay u qabto carabta ayaa ay dhaansaneyd oo ma ay arki karaynin isirkaas iyo wax kasta oo ku abtirsada. maalin maalmaha ka mid ah oo barafkii bishii 12 da-ayo ayaa Moshe oo la socday uu si kadisa u joojiyey inta aanay ka tallaabin bariij ama buundo qori ka samaysan oo barisimaadkii dhex mari jiray magaalada Vienna. intii uu ka soo horjeestay ayuu si dareen leh u yiri, aamina ma i guursanaysaa? kama ay fakirin oo inta ay habsiisay ayaa iyada oo laabta ay ugu hayso waxay dhaqso ugu jawaabtay, Moshigii aan jeclaayow, iminka qoys baynu nahay qaali. si xushmad leh oo go-aani uu ku laran yahay ayuu ugu jawaabay, guur rasmi ah oo macbadka ka dhaca ayaan rabaa. sidaas ayay ku ogolaatay guurkii Moshe oo weliba u dhacay hab waafaqsan diinta Yahuudda. waxa uu guurka uu ka dhacay macadka Shimod oo ay Yahuuddu ay ku lahayd magaalada Vienna. aamina guurkeedii awgeed waxay magacii carbeed ee u badashay Ani oo magac Yahuuda ayay la baxday. waxa ay noqonaysaa Ani Moshe Bread oo ah magaceedii cusub ee loo raaciyay abtirsinkeedii Yahuudiga ay guursatay. markana aan eegno hayaankii lagu hungoobay. guri cusub oo aad u qurux badan ayay magaalada Vienna ay ka degeen qoyskii cusbah ee Ani iyo Moshe, waxaana ay guriga uu ku yaalaa mid ka mid ah cirifyada magaalada ee cagaarka dhulka bannaan ee aadka u ballaaran iyo dhirta kaynta u eg ay ku xeeran tahay ee ay aragooda nafsadooda ay ku raaxaysanayso. kurtinkii ama geedkii aragtay iyo jabaqdii baxdaaba waxay ahaayeen cadow ku soo maqan. waxa ay aamintay in sirdoonka carabtu haddii ay warkeedu ogaado inuu qaarijin doono, taas ayaana waxaa ku noqday sas xitaa dharaartii cad ay ku riyooto. waxay gaartay heer ay ka baqato in ay baxdo iyada oo aan gaari wadan ama keligeed oo aan Moshe aysan kaxaynaynin ay baxdo. hurdada oo ay habeenkii ka soo boodo cabsida ay ku seexatay darteed, iyo mararka qaarkood oo uu Moshe hurdada ka toosiyo marka ay u adkaysan waayo oohinta iyo hurdada dhexdeeda ay iyada ku riyoonaysay. marar badan oo iyada oo ka soo jeeda ayaaba ay sawiratay humaaga ruux arbeed oo inta uu gudaha u soo galay qolkeedii hurdada bastoolad madaxa uu ka saarayo. xagaagii sanadkii 1972 ayaa aamina oo haatan muddo ku soo jirtay duruufahan qallafsan. waxa ay maalin maalmaha ka mid ay si kadis ah wargeyska ay aqrinaysa uga aragtay codsi ay dowladda Israa'iil ku dalbanayso in dadka Yahuudda ee dalalka Yurub degani ay Israa'iil ay u soo guuraan oo weliba si tabaruc ah ay uga mid noqdaan ciidamada difaaca ee maamulkii Yahuudda. waxa uu ogeysiisku sheegayay in dhalinyarada Yahuudda ee Yurub ka timaada ee dalabkan aqbalaa la siin doono mushahar aad u sarreeya iyo weliba xuquuq kale oo tiro badan. farxad ayay iskala garan weyday. weji xumadii ay cabsida haysaa ku beertay iyo culayskii nafsiga ahaa ee saarnaa ayaa mar kaliya ka duulay. waxay aamintay inay heshay xalkii ugu habboonaa ee ay ku soo afjari lahayd xaaladeedii foosha xun ee cabsidii farxadda oo dhan ka qaaday. ogeysiiskaasi ay aqrisay aamina waxa uu mar kaliya bedelay xaaladaas ee ay ku jirtay. reynreyn hor leh ayaana ku abuurantay. waxa ay gashay rajo ah in nolol cusub oo farxad leh iyada iyo Moshe ay ka bilaabi karaan Israa'iil. iyada oo aan weli saygeedii Moshe ku qancin ayaanay siiba bilowday inay ku riyooto iyadoo Israa'iil u guurtay oo nolol aad u sarreysa iyo farxad ku raaxaysanaysa. maalintaas ayay bilowday in saygeeda ay ku qancisay inay u guuraan Israa'iil, inuu heli doono baasaboor Israa'iili ah, guri ay isaga iyo iyada ku wada noolaadaan oo cabsidii dilootay inta ay gebi ahaanba ka guurto ay farxad heli doonto. sidaa ayayna sawiranaysay. Moshe oo markaasi rajo fiican ka qabay inuu shaqo ka bilaabo mid ka mid ah shirkadaha duulimaadyada madaniga ah ayaa markii horeba si aada uga hor yimid talada aamiina ee ay ahayd Israa'iil inay u guuraan.
waxaana u sheegay inaanu weli si buuxda u dhammaan dagaalkii carabta iyo yahuudda, islamarkaana aanay dhammaan weligeedba dhammaanaynin cabsida laga qabo in mar dambe colaado dhulkan uu ka dhaco. inta uu jiro dhul la haysto iyo shucuubta carbeed oo dhulkooda doonaya, dagaalkaas ayuu aaminsanaa in uu sii soconayo. baryo aanay habeen iyo maalin kala joojinaynin oo hadba inta ay u soo tabar qaadato oo dhan kale ay kaga imaanaysay Mooshe si ay ugu qanciso aragtideeda, ayaa waxa uu ku dhammaaday in Mooshe uu bedelo go-aankii sii diidmada ahaa. safaaraddii Israa'iil ee Vienna ee ku taalay ayuu Mooshe u tegay si uu u xareysto waraaqihiisii caddeymaha shaqo, isaga oo doonaya in uu ka faa'iidaysto baaqa Israa'iil ka soo baxay in dalkiisii uu dib ugu laabto. bishii 11aad ee sanadkii 1972 ayaa Aamina iyo odaygeedii Mooshe oo duulimaadkii diyaaradda Al-Caali Israa'iil ah waxay u soo safreen Israa'iil. soo dhoweyn aad u sarreysa ayaa lamaanahani ay kala kulmeen Israa'iil, weliba si gaar ah ayaa loo soo dhoweeyay Aani Mooshe oo dabcan in ay Carabiya tahay uu Mooshe horey u sii caddeeyey. soo dhoweynta ay lamaanahani kala kulmeen gegida diyaaradaha ee Lod waxa ay yaab iyo qaadan waa ay ku noqotay Mooshe, marbaabuu ku sigtay inuu u qaato in xaaskiisa ahayd qof aad muhiim uga ah dalkeedii ama ugu yaraan shakhsiyadeedii la yaqaano. Mooshe waxa uu farxad la muusooday markii isaga iyo xaaskiidii indhahoodii isku dhaceen oo ay ka dheehan karaya farxad aan la soo koobi karaynin inay qabto. Mooshe iyo Aamina waxay degeen guri cusub oo dowladda u sii diyaarisay. dhowr maalmood markii ay nasatay ayaa Aamina looga yeeray xarunta mid ka mid ah hay-adaha ammaanka ee Israa'iil, waxaana la weydiiyey boqolaal su'aalood oo la xiriira dhalashadeedii, halkii ay ku soo kortay oo dabcan Urdun ahayd, xaaladda qoyskeeda iyo asxaabteeda oo dhan, waxaana laga wareystay siday isku barteen Mooshe iyo guurkooda. su'aalahaas oo dhanna waxay ugu jawaabtay si kalsooni leh oo aanay hakasho ku dhex jirin. waxaa kaloo la weydiiyey aragtideeda la xiriirta jiritaanka Israa'iil iyo shucuurteeda ku aadan dhulkeedii ama dalkeedii Urdun. waxaa kaloo laga wareystay Falastiiniyiinta Urdun ku dhaqan iyo su'aalo la mid ah. waxa ay baarayaasha Yuhuudda u sheegtay in ay nacayb ay u qabto ururka xoreynta Falastiin iyo guud ahaan ururada kale ee Falastiiniyiinta. waxay ku andacootay in qaladka ugu weyn ee boqor Xuseenkii Urdun uu galay uu ahaa inuu wada dili waayo Falastiiniyiintii Urdun ku nooleed, iyada oo sida kalena ku celcelisay in ururada gobonnimada doonka ah ee Falastiiniyiinta ay aad u necab yihiin qowmiyadaha Sharkisiyiinta. xoogaga hubaysnaa ee uu boqor Xuseen ka saaray Urdun ayaa iyaguna gadooday oo gubay guryihii iyo dhismayaashii qowmiyadda Sharkis ee Urdun. waxa ay burburiyeen dhismayaashii iyo hantidii Sharkiska. sababaha ugu muhiimsan ee ay Falastiiniyiinta u laynayeen Sharkisku waxay ahayd Aamina adeerkeed oo ahaa jenaraal ka tirsan ciidanka dalka Urdun ayaa ka dambeeyey ama hormuud ka ahaa xasuuqii foosha xumaa ee bishii 9aad sanadkii 1971 ciidamada Urdun dhulkooda ay kaga saarayeen Falastiiniyiinta. dad aad u tiro badanna sida bini'aadanimada ka baxsan loola macaamilay. Aamina waxaa la siiyey sharciga Israa'iil oo u aqoonsatay in markaasi la siiyey laga bilaabay ay tahay muwaadiniin u dhalatay Israa'iil, waxaana saraakiisha ay u ballan qaadeen in sida ugu dhaqsiyadaha badan uguna suurtagalka badan shaqo fiican loo siin doono. halkaa inoo joogto qaybta labaad ee sheekada Aamina al-Mufti.